magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda goboleedka Galmudug ayaa laga dareemayaa u diyaar garowga maalmaha xurriyadda Soomaaliya oo ku beegan 26 bishan Juun sanada 2020 waxaana magaalada Dhuusamareeb ka soconaya olole lagu diyaar garoobayo dhalinyaro isxilqaantay ayaa isu taagay inay ka qayb qaataan ololahan lagu jiro u diyaar garowga maalmaha xurriyadda fooda nagu soo haysa haatan gudoomiyaha ururka dhalinyarada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb Axmed Xasan ayaa ka warbixiyay qaabka ay ugu diyaar garoobayaan isbuucii hadda u dambeeyay oo maanta 25 taariikhda ku taagan tahay aan joogno olole nadaafadeed iyo bilic soo celin iyo guud ahaan u diyaar garowga maalmaha xurriyadda oo fooda nagu soo haya maamulka caasimadda Galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada xaafadaha caasimadda dhalinyarada iyo haweenka waxay u diyaar garoobayeen ama ay wadeen olole u diyaar garowga maalmaha xurriyadda oo runtii maanta ay ku beegan tahay 25 caawana ay tahay habeenkii calansaarka oo maaragtay gobolada waqooyi ay qaateen xurriyaddooda iyadoo sidoo kale maaragtay sugayno midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfurta ku beegan kowda luuliyo runtii dhalinyarada caasimadda waxay hormuud u ahaayeen ololahan maaragtay bilic soo celinta nadaafadda iyo u diyaar garowga maalmaha xurriyadda qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb qaadanaysay ololahan ayaa iyaguna warbaahinta SBC la hadlay iyo kowda luuliyo maalmaha xurriyadda awgeed ayaan u dabaaldegaynaa maanta ay taariikhdu tahay 25 waxaan wadnaa calamanka qurxintoodii iyo meelaha inaan ku xardhanno si aan xurriyadda dalkan u muujino annaga maadaama aan dhalinta soo kacaysa maanta dhalinta maanta haddaanaanay inaan muujino maaragtay calankeeni iyo muuqaaladiisii iyo darbiyadii inaan ku xardhanno inaan dabaaldeg ciidadeed waaye maalmaha ugu quruxda badan ee Soomaalidu leedahay ama maalmaha xurriyadda haddaba jirin maalinta xurriyadda aan la asteenin waxa waaye ma jiri lahayn nolol iyo Soomaaliya ma aysan jiri lahayn xurriyadda ayaan u diyaar garoobaynaa taasoo dardargelin aan ku wadno bilicda magaalada aan muujinayno sidaan ku qurxin lahayn oo maaragtay aan u wanaajin lahayn maalintaasoo nagu ah maalinta xurriyadda maalin qaali nagu ah oo maaragtay aad qaali noogu ah ummadda Soomaaliyeedna qaali ku ah waa maalintii xornimada aan helnay 26 Juun taas ayaan ma garanaysaa yaan u muujinaynaa shucuurtanada aan soo dhaweynaynaa aad aan u soo dhaweynaynaa inaan Cabdi Taafiyaad SBC Dhuusamareeb